بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلون حكتاب عني آيات لولا ورفعنا لك ذكرك. النبي عليه الصلاة والسلام من قدر كيسا في شرف كيسا كر الله قاضي. وحيالها قدر كالنبي شرف كيسا كر الله قاضي كمل وحاء كملها جعلك إلهي المسلمين تقولوا تدعو قليلي نبيك الجعلايات صلى الله عليه وسلم. بس صحابتي نبي لنا ولا صلى الله عليه وسلم قابك جعلك وها نوحكة المعنى الصحيحين كوحا كسبا عروة بن مسعود صحابي قال هذا انتو سنصور اسلامين صلح الحديبية markii la gelayay heshiiskii baa wuxuu ahaa ninka ay u soo dirsadeen Quraysh inuu ka qayb galo wada hadalka nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam Quraysh markii hadalkii dhamaysto ku noqday Makka buu Quraysh wuxuu siinayaa warbixin wuxuu soo arkay marka wuxuu yiri tolka Ilaahay baan ku dhaartay meelo fara badan baan ku tegay anigoo wafdiya liba wadamada waaweyn Faris iyo Rome iyo meelo badan baan tegay weligii ma arkin buu intaan arkayay saxaabada nabigu say u weynayeen nabi Maxamed qof la weynay ma arkin buu marka hadalkaas leeyahay islaam markaas waxaan arkay buu yiri saxaabada nabiga oo nabiga haddii aan dhoof u tufo ay gacmaha u dhiganayaan oo korkooda ay marmarinayaan baraka ay barakaysanayaan waxaan arkay buu yiri hadduu weysaysto way isku diri jireen biyaha weysadiisa ilaa aad u malayso in dagaal ka dhaxeeyo waxaan arkay buu yiri hadduu wax amro horey ka fulin jireen waxaan arkay buu yiri marka ay ag joogaan hadalka si hoos ugu dhigayaan si u ixtiraamayaan si u weyneynayaan wax lamida ma aan arkin waxaa ka mid ahaa saxaabada qaabka nabiga u jeclaayeen إن ويمر بادية النبي عليه الصلاة والسلام مركز في رسول الله متى الساعة قيامه وقرمه البادية هو كير هذا الأذكار صحابة الكلام كاس النبي وحكيلي ما أعدت له قيامه قلت نواسس كدافع محاك هذا يا سنة هذيك محاك ترك عمل العبادة رسولك إلهي وحبض المهيو صوم بدل المهيو صلاة بدل المهيو لكن وحان جعله إلهي رسول كيس يعني كاس وحي بهذا بدل موسى شاكن وآخره قارئ لكن وحوش شاكتي إنه جعله إلهي رسول كيس نبي وحكول عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببته دوق يا ما هذه لا تقول عدة أتشغشها ماشي تشوغان بدل تشوغي سابو النبي عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك وحديث كاورني وحليه hadalka nabiga uu yiri waxaan nooga farax badnaa ma uusan jirin maxaa yeelay ma gaari karno rasuulka amalkiisa iyo Abu Bakar iyo Umar minna laakiin jacaylka aan jecelnahay kaliya baanu aakhiro meel soo fadhiisan doonaa waxa kamid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay warinayaan maca tafaasiir in nabigu maalin uu arkay nin xoogaa yar murugaysan كاسوني محاكو وداعي رسولك إلهي maalintii haddaan u baahdo inaan ku arko waan ku imaaday waan ku arkaa anoo guriga joogaan jeclaysta inaan ku arko waan soo baxay masaajidkana kaa hela laakiin waxaan ka fikiray haddii aakhiro la tago oo jannada la galo see ku arkaya ilaa aduu nebi baa tahay waxaa lagu siinayaa meel kale lagu geenayaayo annaguna meel hoosaan joogna yani ninkaani ka hadli maayo inuu naar gelayo inuu janno gelayo wuu yaqiinsan yahay laakiin wuxuu isleeyahay dee sidaa maanta nabigu arki kartid oo aad ula fadhiisan kartid aakhiro adigu kaa koreeya marka ninka walwal waxay ku haysaa aakhiro haddii la tago tolow nabiga intee sujuudin doontaa nabigu uu ka aamusay calayhi salaatu wasalaam markaasaa alla wuxuu soo jeclay aayad alla uu leeyahay أولئك الذين أنعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قفك إلى رسولك سأضيعه آخر وحميلة قدونا النبي الشهداء يعني صحابة يقول لنا ولا
هذا ما حكيسي فكري جيران أدوك وأروك اللي تجي دونا يترو آخره حين غنوتا عائشة وحده رضي الله عنها ما أنت النبي هجروني يا أبو بكر ويهمي أوشي النبي يا أبو بكر ورسولك إلهي مكو راعي كان هجران مركز محيو حاوى راعيسا وحيث وليقي ما أركن قفر حل فرق لقوية ما أنت أكوها أبو بكر سوء يعني النبي الصاحب لأنه والوضع إما كم دينا ودا حيسا رفقة سي أنت هسا أبو بكر فرحتي وكوه سبيل الله عائشة رضي الله عنها عمر بن عاص سنو حالدوري مركو دماني فوحويلي وحان صومر يستبدح حالدور نور الشيء حالة وحايد حالة أن قالها ونبي أن قفك ونعيه عنها إلهي قبل بالي حالة وحان صومر أن صور إسلامي بوجي markaan soo islaamay jacaylka nabiga aan jecelahay calayhi salaatu wasalaam iyo siduu igu weyn yahay ma aanan awoodin in indhahayga aan ku fiiriyo oo xitaa intii aan la noolaa haddii nabiga ii sifa kuma sifayn karo maxaa yeelay indhahaygu inay fiiriyaan nabiga calayhi salaam oo ka buuxsadaan weynayn iyo qadarin aan u hayo ma aan awoodin buu leeyahay علي بن أبي طالب وحل ويديي كيف كان حبكم لرسول الله سيدي بطلت عليه النبي عليه الصلاة والسلام وحيل كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الضماء إلهي بكل عرته نبي وحنكت علينا حولها يقع يا عروت يقع يا أبياشا يا هويوجنك يا بيقبو وحل أقاب ومنتحي لقسيين يعني الصحابة قال هو النبي عليه الصلاة والسلام بعض السير وحي وريان قال أحد إنها وين اللي قد لي بدق العودية ده به ندي الله الشاقي وحيث رسولك لا كورم وفي عينه بالي حتى نوح الله شيء ولا كذي ندري رسولك لا كورم يتي وفي عينه حتى نوح الله شيء ندري ولكيدي رسولك لا كورم وفي عينه بيع نركو مركي عرفتي وحيث رسولك لا كل مصيبة بعدك جلل dhibaato kasta oo dhacda hadaa aduu nooshahay wax yar weey yani waxa nabiga aad u weynaa calayhi salaatu asxaabada aad u weynaa xubbiga nabiga calayhi salaatu wasalaam waa takeenaysa marka qofka muslimka ah in salliga uu badiyo markuu arko qaabkii nabiga u jeclay calayhi salaatu qofku jecel yahay hadal hayntiisa ka sheekeyntiisa badiyaa sallallahu alayhi wa sallam